gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Somaliland ee UCD Engineer Faysal Cali Waraabe oo maanta la hadlay telefishinka Home Cable ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay muranka u dhaxeeya ganacsade Axmed Cismaan Geelle iyo dawladda Djibouti amaba baan ku yaala wadankaasi Djibouti. Axmed Cismaan Geelle dawaa nin caana laba dhalashan uu sita marka qadiyadiisu waxay u eegtay laba arrimood baa weey mid waa mid isagu xulay waan dulmanahay oo xoolahaygii anoo maqan ayaa inta waaran la ii soo jaray markan iman waayay waxaygii la wareegay midna waxa weeye baan mar Faransiisa ayaa ku sheeganaya deyn oo deyn ka qaatay marka waxay la tahay labadii arrin waa la kala qaaday mid waa mid ay xoolihiisa la wareegay inkastoo reer Djibouti hadda waddan reer Somaliland حق واحد ولا نهاي ده إن دولة Djibouti ده لو تقو ووحي كوكلا مكان ده حادي ووحي أنا لا ظلمنه ودولة هان الله شاعرنه وقف حق عقوليه إن وحي لقوليه هنا لقى قاعدة وحق لنا السياوي لكن لا استعماله ما ضحنمو يدول النمو دواء نوعب هنا كانوا إحنا قصارا مسؤولية بيننا قصارا بانك فرنسيس كم حلنا ما دام أنا لا يبلو هنا أنا قوان كصباح محكمة كله أنا نخصينين وتكيف وحلي هاي محكمة دولية هاي حق واحد ولا هاي إن فايل جريستان كيس كاغ إسنا وتيم كي دافع أي كنسلا ودلك السومان لو قاعدة كيس كأمانة لو قاعدة وي سفيرة لو قاعدة أيوي لكن ما إن قوان محكمة كله سوق يسين لو في اليوم وحنا نشيء جنا ضدك والله اللي قدومي محكمة ده والسير كأنا ما جودها وحلا قابنيه يوارن قوان وإحنا وتشرتها مشرته أرنتها كان عصدها كان عصدوا الحكود دي أساد ضد بشكتين لعي كم قنت هاي إن ألكنا هدي محكمة لقفرة تيسون وحدوني إن العتيسي لصيو هدي ويشوي مركا haddii aanay Somaliland awood u lahayn in labada kiisba ay qaado oo lacagtiisa uu sheeganayna haddii ay rumowdo ay u soo celiso taysiga laga doonayna ay ka qaado aanay labadiba awoodeynin miyaanay u muuqan in Somaliland iska dayso oo maxkamad caalami ah isla tagaan maxkamad caalami jirta wax weyn ku waasni Somaliland ba weeye bankan wax ka dhaxeeyaan iyo Djibouti waa kala jaad banka iyo soo wax xisaabtamaya waxa laga raamay daara laga raamay banka gacanta ku hayda raamaadiisi marka kiiska weyn kiiska la galo si sharci loo gala tan kale de waa loo xog sheegtay waa loo xog sidii loogu xog sheegtay damaga DB World ba had cad la wuxuu laga wareegay marka niman daahiya maaha Cismaan Geelena doo saasi u laadlaadsadeen laakiin de socon mayso in reer Somaliland xuliisa la iska qaata inaga inagu ceebtay marka waa in si Somalilandna loo gala odagan loo tagaa ee la yiraahdo meen isdhacnaa magac dawladeed baan isku dhacnaa ya ilaa halka haduu in gaarsiyo in Geelle waxba ma nihin Engineer Faysal Cali Waraabe waxa uu ka digay ciidan badeed uu sheegay inay samaysanayaan wadamada urur goboleedka IGAD kuwaas oo aan kala tashan Somaliland sida uu hadalka u dhigay IGAD bish afarteedii waxay soo saartay go'aan task force اللي هو حلو سمينيا بدعس iyo Gulf of Aden shirka waxa ka qayb galay Soomaaliya onjir shir kharajada Soomaaliya ka qayb galay Soomaaliya dhulkeenii buu inagu dulbaayay dhulkeenii ma iyaga rirsiga Gulf of Aden ma Soomaaliya ku jirta waa inaga dadka Gulf of Aden iyo rirsiga degan waa inaga waxay ku tusataasi inaynu yaani arrimihii dibadda adduunka aynu dibadda ka joogno oo cidla ka heleen dawladda aan jirin maamulka farmaajo hadda gabalkiis waa sii dhacayo waxaan leenahay dadka reer Muqdishona waxaan leenahay iska rida ciyaalkan aad soo urursateen iyagoon laba sano jirin suuqa ku tooganaya marka waxaan jecelahay anaguna wixii gacana sidaan maalinta hore u caawinay jiray aydid in maanta anagu diyaar baan u nahay laakiin waxaan wax la adkaysan karay maaha in maanta group yar
oo qabyaalad ku fadhiya meesha inay dhulkii baddii Soomaaliya oo dhan ay iibiyaan oo Chinese siiyaan khayraadkii baddana shidaalkiina xaraashaan Britain ay ka baxaan dhulkooda ku noqdaan wax loo dulqaato maaha marka waxaan leenahay reer xamar muqdisho idiga quraleed cashuura laakiin gudoomiye meel la soo oran karin maxaa arrimaha Soomaaliya adiga wasiiradooda muqdishadooda cashuurtooda waxa maxaa ku gelinayay adigu reer Soomaaliya wayna khusaysaa waa dal aan ka wada hadal noo socdaan waa dal dhibaatada tahay groupkani xamar qulma inagana xumaanteena ka shaqeynaya marka waa in saanu berigi maxamed siyaad bare isku tagnay wayna isku tagnaa gacanta ka saarnaayo gacanta u soo gelina dadkii dhulka u badnaa gudoomiyuhu waxa uu ku baaqay in la kala diro dhammaanba golayaasha deegaanka ee dalka isla markaasna saddexda xisbi ay ka wada tashadaan gudoomiyaasha amaba maayirada bedelaya golayaasha deegaanka waxa weeye termiskoodu markuu dhamaado waa inay albaab ka baxaan bisha kale wareegsiisa waa inuu shaqada sii hayaa waxaan ku talinayaa inuu sii hayo xogayaha dowladaha hoose sii haya sabca saddex xisbi isku yimaadaan saddex gudoomiye isku yimaadaan meeyra la isla ogol yahay oo nadiifa oo caqli in la sameeyo kuwana la geliya audit la geliya ugu dambeyn injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu ku baaqay in xeer laga soo saaro qabyaaladda oo uu sheegay in si weyn ay ugu sii fidayso guud ahaanba Soomaaliland